السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال مeel kastaad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka sportiga halaba maalin kastaad kala socotaan ciyaaraha latest tube maanta waxaan ku eegi doonaa ciyaaryahan Mesut Ozil oo shirkadda wacaysiintu hay ee Adidas ay qandaraaska u jartay soo kale ciyaaryahan Sterling la filayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Manchester United ciyaaryahan Lingard oo la filayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta AC Milan warkaasi maxaa ka jira soo kale ciyaaryahan Alonso oo qandaraas u dheeray kooxda Southampton iyo waliba qubanayaal kale sport ayaa idihayna fadlan iska bedelin channelkii midkana daawanaysid ciyaaraha latest tube iyo muuqaal cusub iyo haddii aad markaa ku horeyso aadna soo booqat fadlan like share subscribe garay soo kale ha ilmaamin gambaleelka inaad ku dhufatid si aad u hesho video kasta aan soo dhigno barteena ciyaaraha latest tube haddii aan ku bilaabno cidigaha kooxda kubadda cagta Arsenal Mesut Ozil ayaa mooday in shirkadda wacaysiintu hay ee Adidas ay qandaraas ku jirtay ciyaaryahankani arrintaasi waxaa lagu macneeyay arrimoyin fara badan oo ay ka mid yihiin inuu ka fariistay xulkiisa qaranka ee Jarmalka sidoo kale teen cali ciyaareedkan uusan waxdara ka dhigin horyaalka Premier League isagoo dhaliyay hal gool oo kaliya soo kaleetana uu sameeyay hal caawin soo kaleet waxaan mooday in ciyaaryahankani oo arkay isaga madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isla sawiran taas aad moodo inay noqotay mid ku faafa dhammaan baraha bulshada taasna ayaa la sheegay inay tahay qayb ka mid ah in shirkadda Adidas ay qandaraas ku jirto ciyaaryahankani qandaraaskaas ayaa ku kacaya 22 milyan uu ka qaato sanadkii waxaad moodaa in sidoo kaleeto oo la sheegay in Mesut Ozil arrimuhu ka sheegay dalka Shiinaha uu yiri hala istaajo suuqii lagu hay dadka muslimiinta ee ku nool iyo kuwa u dhashay dalka Shiinaha balse qaatay diinta Islaamka isla Premier League ayaan ku jirna waxaan mooday in Premier League maanta shalay la helay hal qof oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur kaasoo la helay cudurka halista ee safmareenka ee COVID-19 ciyaaryahankaas oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa mooday in magaciisa la sheegin arrimo la xiriira shakhsiyaadkiisa sida ayna ku xusan tahay jadwalka ay dejiyeen guddiga Premier League dalka Ingiriiska kaasoo in ciyaaryahan kasta la helay cudurka halista ee COVID-19 in magaciisa aan la shaacin balse la geliyo 7 maalin oo karantiina kadibna baaritaan lagu suubiyo haddii uu ka faqo oo dib ugu soo laabto tababarka buuxa ee kooxdiisa sidoo kale kooxda kubadda cagta Tottenham ayaa bogada rasmiga ah ku sheegtay in ciyaaryahan kamid ciyaartooyda laga helay cudurkaasi sida awgeedana ay imika ku jiro karantiin la filay maalmaha soo socda haddii uu ka badbaado cudurkaasi dib ugu soo laaban doono kooxda dhankale waxaan mooday in ciyaaryahanka imika ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester United James Lingard aad mooday inuu ka fikirayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee AC Milan wuxuuna qadka telefoonka la hadlay saaxiibkiisa hore ee Jadon Smalling oo imika ciyaarisay ama kooxda kubadda cagta ee Roma oo wax ka weydiiyay nolosha dalka Talyaaniga iyo waliba horyaalkaasi sida uu yahay Jadon Smalling ayaa mooday inuusan boos joogta ka heli doonin kooxda kubadda cagta ee Manchester United sida awgeed ayaa waxa ku qasbaysa inuu raasto koox kale isagoo la filayo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee AC Milan uu ka helay fursad dahabi ah waxaa soo kale ciyaaryahankan doonaya kooxda kubadda cagta Everton oo ka dhisan horyaalka Premier League iyo soo kale kooxda kubadda cagta Sheffield United ayaa soo kale ciyaaryahankan indhaha ku haysa isla barnaamijka sportiga ayaan ku jirna waxaan moodaa in kooxda kubadda cagta Manchester United ay soo gashay inay la saxiixato ciyaaryahan Raheem Sterling oo imika ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester City ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa mooday inuu ka tagi doono kooxda kubadda cagta Man City haddii soo FIFA ama UEFA ay ganax ku soo rogto kooxdan taas oo mutasan doonto inaysan 2 sano ciyaarin horyaalka Champions League waxaad mooday United soo kale ay doonayso ciyaaryahan Jadon Sancho Grealish iyo waliba ciyaaryahan Nando oo ay dhamaantood ay wala doon waxaad mooday United ay si waaliya ugu dhex jirto suuqa kala iibsiga ciyaartooyda balse soo noqon doona shacda rasmi kooxda kubadda cagta ee Manchester United Sterling Grealish Sancho Fernandes Paul Pogba
Antonio Martial, Rashford iyo Ighalo ayaa moodeen saacada rasmi United uu noqon doono mid aan la qaban karin. inta badan wargeysyada caalamku ka follow sport ayaa sheegeen in sidii ay hadda United ay wax ku raadinayso haddii ay hesho ay noqon doonto kooxaha ugu qatarsan Premier League lagana yaabo inay u tartanto horyaalka Premier League. ciyaaryahankan ayaa mooday inuu ka soo biray kooxda kubadda cagta Man City dhanka iyo kooxda kubadda cagta Liverpool. ku biiritaankiisa kooxda United ayaa waxaan mooday inay tahay mid sahlan isagoo horeyba ka soo tagay koox weyn. iminkana haddii uu ka tago kooxda Man City la yaabo laha sida ay qoreen wargeyska Sky Sport News. soo kaleeto ciyaaryahankan ayaa moodaa inuu yahay ciyaaryahan lafdhabar u ah kooxda kubadda cagta Man City aysan si fudud ku soo dayn doonin in ciyaaryahankan uu ka tago kooxdaasi, balse haddii ay dhacdo in kooxda in la ganaacayaan moodaa in dhowr ciyaaryahan ay ka haleeli doonaan kooxda. ugu dambeyntii waxaan eegaynay ciyaaryahan Sean Longs oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Southampton ayaa moodaa in qandaraas cusub uu saxay kooxdiisa Southampton isagoo sii joogi doono ilaa 2023 garoonka ay ku xamaalatay kooxda Southampton ee St Mary Stadium. ciyaaryahankan ayaa ku soo biray kooxda kubadda cagta Southampton 2014 isagoo dhaliyay 55 gool sidoo kale caawinay ka ilaa 26 gool. ciyaaryahan Sean Longs ayaa waxaa taageeray weyn u ah tababaraha kooxdaasi Ralph Hasenhuttl sida ayuuna u xunayshay in ciyaaryahankan uu muhiim u yahay kooxda si joogitaankiisna ay tahay mid ay kooxda u baahan tahay ilaa ay laga helo bedel dhab ah oo isaga bedeli doono sida ayuu u sheegay isla wargeyska Sky Sports. barnaamijkii sport ee nala socoteen waa naga inta fadlan like share and subscribe sportiga waa naga inta.